Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to our first lesson of Book 1. Here talking to you Ismail al-Mahdi. Aad baan idin wada salaamaya ku soo dhawaada casharkeena ugu horeeyay ee Book 1. Our first lesson is based on the topic of body. Mawduucayna ugu horeeya waxa weeyaan qaybaha jirka. Let's begin. So the vocabulary starts with page 2. Okay? Casharka wuxuu ka bilaabmayaa boga labaad. So lesson 1, word list. So the first sentence that says here, please put these words and sentences in your own language. Please put these words and sentences in your own language. marka macnaheedu waxa weeyaan fadlan kelmadahan iyo jumladahan ama weerarkan waxaad ugu bedeshaa amaad ku qortaa luqadaada, your own language. Language waa luqadaada own waad adigu iska leedahay. marka macnaheedu waxa weeyaan meelaha bannaan af Soomaali baan ku qoranaa insha Allah. kelmad walba af Soomaali markaan kugu micneeyo ama jumlad walba ama sentence walba markaan kugu micneeyo meel bannaan haddaad ka aragtid liidka bannaan waxaa lagu talagalay adigu inaad ku qortid macnaheeda af Soomaaliga. Okay? marka waxay ku noqonaysaa hadhow dictionary yaro kooban waayo 5 chapter weeyaan. chapter walba 2 page of vocabulary waa ku jira marka 10 page ayaad heli doontaa hadhow ku micnaysan haddii aad kelmad u baahatid ama dib u rabtid inaad yara eegtid dib baad tixraac ugu samayn kartaa. sidoo kale waxaa ku qoran be an artist, make some pictures. Be an artist, make some pictures. artist noqo ama qof wax sawiro noqo, sawiro samayso. marka waxaad jeceshahay inaad sawirtid ama xasuustaada ku xasuusanaysid laakiin hadduu qoraalku ugu furan yahay qoraalkaas aynu ugu furan insha Allah. Let's begin. The first word we have body. Body macnaheedu waxa weeyaan jirka. waa jirka. Mouth. Mouth waa afka. Mouth marka th ka waxa lagu dhawaaqayaa tha sida Arabigeena alif ba ta tha. Mouth. Head. Head waa madaxa. Head. Tooth. Tooth. Tooth waa ilig. waa ilig keliyad. hadhow jamacaanu baran doona insha Allah laakiinse ilig keliyad waxaa la dhahaa tooth. Okay? marka kana la mid yihiin tha iyo thadaas. And the next one we have, let's go take some few words here. Face. Face waa wajiga. Tongue. Tongue marka waxaa lagu dhawaaqayaa tongue. carabka weyn. carabka. Hair. Hair waa timaha ama waa tinta. Neck. Neck. Neck waa qoorta. qofka qoortiisa. Neck. Cheek. Cheek. Cheek waa dhabanka ama waa daanka. Throat. Throat. Throat waa cunaha ama hunguriga. halka cuntada ka daadagto ayaa la oranayaa throat. Throat. Chin. Chin. Chin waa garka. garka. Shoulder. Shoulder. Shoulder waa garab. waa one single waa mid keliyata. waa garab. Okay? waa garab. And the next one we have ear. Ear waa dhegta. Arm. 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 Arm waxa weeyaan waa gacanta oo dhan. Okay? gacanta oo dhan ayaa la oranayaa arm. Eye. 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 Okay? marka a maaha arday badan baa a ku dhawaaqa laakiinse waa eye. Eye waa isha. il keliyad.
hand 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 waa gacanta inta hore ee faraha iyo gacanta wax lagu qabto hand okay inta badan waxaan isku khaldanaa af Soomaali markaan ku dhawaaqano arm iyo hand arm marka waxa ku jirta ilaa dhudhunka ilaa halka maxaa la dhahaa gacanta kulli intaasoo dhan baa la isku oranayaa arm okay inta hore laakiin waxa la oranayaa hand inta yara hore nose 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 waa sanka finger 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 waa faraha laakiin waa mid kale oo far kaliya waa far jamac wali ma qaadan waa far kaliya finger lip 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 waa dabin kaliya dabin ama afka ka ku tala reer koonfureedka waxaan malayaa kalmad kale oo yaqaanaan laakiin dabin thumb 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 baada laguma dhawaaqay waa very silent letter marka thumb thumb waa suulka farta suulka okay so that's the end of page 2 page 2 intaas uu kooban yahay inshallah we'll go to the next lesson inta u dhaxaysana kalmadaasi qorta af Soomaaliga ku wada macnaheeyo inshallah jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh